kusoo dhawaada casharkeena imtixaanaha ahaa waxaynu ku jirnay chapterkii matrix ayaynu ku jirnay gaar ahaan qaybtii determinantiga ayaynu marinay qaybta determinantiga waxay noo marisay calaamadda labaad ay leedahay determinantigu calaamadda labaad ay yeelato determinantiga marka calaamadaheeda calaamadda labaad ay noo marisay saad doonto mana u kala hormarin karaa laakiin muhiimaddu waxa weeye meeshii noo marisay inaan sheegno example ayaynu ka bixinaynaa calaamadda labaad ay leedahay runtii casharka hore aad buu u dheeraa waayo waxaan rabay qofkas in faham karo laakiin casharka hore wuxuu u dibnaan doonaa waa soo koobi doonaa maadaama fahan badan aan ku bixinay kii hore marka calaamadda hore haddaan isxasuusino waxay odhanaysay haddii laba row ama laba column oo markaad determinantiga raadinaysid ka waso qaatan ayaa hadda determinantiga raadiyay markii determinantiga raadiyo answer ayaa isu baxaya sax haddii haddana aan sameeyo eedaan laba row ama laba column aan kala bedelo oo haddana determinantigeeda raadiyo intaan kala bedelo aan determinantiga raadiyo waxaa isbedelaya oo ay ku kala duwanaanayaan labada determinantiga hore iyo kan dambe waxay ku kala duwanaanayaan calaamadda the sign of value of determinant change waxaa isbedelaya calaamadda bis property 2 ayaa asaaronisay haddaynu ka bixino example haddii isxasuusino waxa weeye determinant maxaa lagu heli jiray inta ayaa lagu heli jiray formula cofactor inta ayaa lagu heli jiray waan soo koobayaa si fudud ayaan u shaqeynayaa solution ayaa oranayaa waxaan soo gaabinayaa sl marka waxaan sameynayaa kan ayaa soo qaadanayaa determinant ayaa raadinayaa determinant det a ayaa soo gaabinayaa det a ayaa soo gaabinayaa marka waxaan sameynayaa one-kan ayaa soo qaadanaya because halkan maxaa weeye a1 one-ka ayaa soo qaadanaya one-ka waxaan ku doortay yani waxa weeye meeshan waa one row waa row 1 iyo column 1 soo waa row 1 because one-ka iyo one-ka waxay ka turjumayaan waa row 1 one ayaa booska oo leh sida ayaa sameynaya waxaan soo qaadanaya one ayaa soo qaadanaya bracket ayaa furanaya bracket ayaa furanaya waxaan sameynayaa cofactor of a11 cofactor of a11 ka ayaa raadinaya cofactor of a11 maxaa lagu helaa cofactor marka raadinaya waxaan oranayaa horta maxaan soo qaadanayaa waxaan soo qaadanayaa -1 ka ayaan soo qaadanayaa waxaan oranayaa -1 bracket baan ku xiranayaa 1 ka ayaa isku darayaa waa labo yani halkan waa row 1 column 1 because waa row 1 iyo column 1 ka isku daro waa labo ayaa halka ii tahay yaan isku qaldin haddaan si fiican u qoro waa labo wey marka minor ku dhufanaya minorka maxaa lagu helaa minor maxay ahayd waa row ahaan column ahaan maxay la wadaagtaa 1 inta ay la wadaagtaa row ahaan maxay la wadaagtaa waxay la wadaagtaa intaas marka maxay noqonaysaa minorkeedu waxa weeye waa ever 9 iyo 6 iyo 8 way minor of 1 maxaa weeye waa intaas marka waa soo fududeysanayaa waa isku dhufsanayaa si fudud ayaan isku dhufanayaa marka waxaan oranayaa bracket ayaan furanayaa bracket yar ayaan furanayaa marka waxaan oranayaa waa 9 haddii lagu dhufto 9 haddii ever lagu dhufto waa ever oo laga jaray 8 marka 6 lagu dhufto waa 48 صح bracket ayaan ku xiranayaa bracketkii ayaan ku xiranayaa kii weynaan ayaan kusoo xirayaa haddana kii weynaa ayaan kusoo xirayaa oo 1 ku dhacsana marka maxaan oranayaa halkan maxaa yaala plus ayaa yaala bida ayaan soo qaadanayaa bidan plus ayaan soo qaadanayaa bida maxaa weeye 1 2 yaay ah maxay ka turjumaysaa waa row 1 column 2 row 1 waa osha column 2 ayaa osha 2 ayaa soo qaadanaya 2 ayaa soo qaadanaya symbol ayaa sameynaya 2 ayaa soo qaadanaya waxaan furayaa bracket ayaan furayaa bracket weyn symbol marka bracketka furo maxaa sameynayaa waxaan sameynayaa cofactor of b12 ayaa raadinayaa cofactorkeeda waxaa ka mid ah -1 haddaan soo qaato -1
waxaan isku darayaa row iyo column-ka oo ah waa 3 waa row iyo column marka la isku daro waa 1 iyo 2 oo saddex ah sax 1 iyo 2 minorka ku dhufanaya minorka waxaa furanayaa bracket yar ah furayaa sidoo kale waxaan sameynayaa minorka marka inta u furo waxaan sameynayaa minorka fiirinaya marka 2 maxay kale maxaa la wadaagtaa inta ay la wadaagtaa row ahaan maxay la wadaagtaa inta ay la wadaagtaa marka minorka maxay noqday 4 iyo 9 iyo 6 iyo 7 inoo sax marka hore waxaan ku dhufanayaa 4 ayaan ku dhufanayaa 9 7 ayaa 6 ku dhufanayaa markaas kala jaraya marka hore labadan ayaa isku dhufanaya ka bacdina labadan dambe ayaa isku dhufanaya oo kala jaraya ka jarta tan ayaa ku dambeynaysa marka maxaan sameynayaa aan soo qaato waxaan sameynayaa marka labadan marka isku dhufto maxay noqonayaan waa 4 to 3 6 wey sax markii aan sameeyo intaas 3 6 weeye 3 6 ayaa hore sagaal af lagu dhuftay 6 ku dhufo 42 waa 42 minus 42 bracket ayaan ku xirayaa kii weynaa ayaan kusoo xirayaa oo marka waxaan sameynayaa ku darta ayaan soo qaadanayaa waxaan oranayaa C13 yaa oo la booskeeda waxa oo la column 3 ayaa hawsha column 3 marka 3 weeye waxaan sameynayaa marka hore saddexda ayaan soo qaadanayaa C13 3 ayaa hawsha saddex ayaan soo qaadanayaa waxaan oranayaa 3 waxaan furanayaa bracket weyn ayaan furanayaa waxaan oranayaa minus 1 row waxaan oranayaa minus 1 ka ayaan soo qaadanayaa soo koobiyaa soo aruurinayaa moogtahay si fudud si loo shaqeyn karo waxaa waqti badan inaan lumiyo ma rabo marka waxaan oranayaa markii 1 plus 3 lagu daro because waa row 1 iyo column 3 marka isku daro waxa weeye waa 4 minorka muxuu noqonayaa minorkeeda wuxuu noqonayaa column ahaan kan ayay leedahay row ahaan kan ayay leedahay marka xiriir la leedahay marka waxa weeye waa 4 iyo 8 7 iyo eber marka labadan ayaa marka hore isku dhufanayaa waa 48 oo laga jaray waxa weeyaan 32 bracket yar ayaan furayaa 32 oo laga jaray eber bracket yar ayaan xirayaa kii weyn ayaa ku xirayaa marka sidaas ayaan sameynayaa marka inta ayaa aljabr ahaan uga shaqeynaa inta hadda aljabr ahaan uga shaqeysa waxay noqonaysaa waa 1 inta hadda isku dhufatid maxaa soo baxaya intan hadda isku dhufatid waxaa kuu soo baxaya minus 48 ayaa kusoo baxaya minus 48 kan maxaa kasoo baxaya intaa markaa soo kala jirtid waxaa kusoo baxaya positive 2 laba lagu dhuftay intaa soo kala jir intaa markaa kala jirtid waxaa kusoo baxaya lix ayaa kusoo baxaysa waxa weeye positive waa plus lix ayaa kusoo baxaysa oo lagu daray waxaa oranaysaa 3 intaan waxaa kusoo baxaysa 36 answerka u dambeeya soo baxaya wuxuu noqonayaa waa 60 ayaa soo baxaysa oo positive sidiisa positive ayaa kusoo baxaysa marka calculator ku xisaabisid waxaa kusoo baxaysa halkan 1 ayaa ka wadaa 6 ayaa kusoo baxaysa
marka determinant 1 maxaa helay determinant 1 that a maxaa helay waxay noqotay 60 ayay noqotay that a waxay noqotay 60 ayay noqotay marka inta ayaa helay calaamadii waxay oranaysay laba row markaas ku bedeshid iyo laba column hadda maxaan soo saaray determinant 1 ayaan soo saaray marka hadda waxaan sameeynaa laba row ayaan isku kala bedelayaa bal isbedelka dhaca inuu sax yahay ayaan fiirinayaa inuu sign isbedeli doono marka waxaan soo qaadanayaa kan ayaan soo qaadanayaa waxaan isku kala bedelayaa waxaan sameynayaa interchange waxaan ku sameynayaa row iyo column interchange waxa weeyaan interchange waan ku sameynayaa laba row ayaan ku sameynayaa interchange marka waxaan oranayaa interchanging waxaan sameynayaa marka waxaan isku kala bedelayaa second row baan waxaan ku bedelayaa row 3 ayaan ku bedelayaa labada ayaa sameynayaa labada ayaa isku bedelayaa row 3 ayaan ku bedelayaa labadaas ayaan isku kala bedelayaa marka waxaan sameynayaa labada row isku kala bedelaya waxa weeye kan row 1 soo maahan kana muxuu noqonayaa row 2 kana maxaa weeye row 3 labadan ayaa isku kala bedelaya laba row marka waxaan soo qaadanayaa waxaan ula baxayaa a1 ayaa ula baxayaa marka waxaan qoranayaa 1 ayaan qoranayaa intii hore ayaan soo qaadanayaa labada ayaa kala bedelay soo maahan labadan baan kala bedelay labadan ayaa isku bedelay row 2 iyo 3 marka waxaan soo hormarinayaa row 3 ayaan soo hormarinayaa kan ayaa dambaysiinayaa because of waxaan raacayaa if two rows or two column of determinant are interchanged the sign of the value of determinant change yani wax isbedelaysa calaamada ay isbedelaysa marka waxaan rabnaa inaan fiirino inay sax noqonayso ila kii hore waa soo saaran soo 6 ayaa soo saaran determinant hore marka waa soo kala hormarinayaa 7 8 iyo 9 bixso halkan 1 weyn marka 4 ayaa dambeynaysiinaya 4 eber 7 marka waxaan oranayaa soo sidaa sax maahan fiiriyo waa sax weeye soo kala bedelay marka waan xiranayaa marka waxaan sameynayaa isagana maxaa ku sameynayaa determinants ayaa raadinayaa bobsiiniya determinantiga marka waxaan oranayaa that a1 maxay la mid tahay waxay la mid tahay 1 ayaan soo qaadanayaa soo koobiya 1 ayaan soo qaadanayaa bracket ayaan furanayaa marka waxaan sameynayaa cofactors of 1 maxay noqonaysaa ila formulada ayaan ku apply garanayaa formuladan waan ku apply garanayaa cofactors of a1 ama a1 maxay noqonaysaa cofactors of a1 waxay noqonaysaa cofactors of a1 waxay noqonaysaa simply si fudud ayaan soo koobi karaa si fudud oo yara fudud waxaan oranayaa 1 maxay la shar leedahay 1 ayay leedahay column ahaan row ahaan xiriir inta ayay leedahay marka labadan baa isku dhufanaya waa 48 oo laga jaray eber aad ayaa soo gaabanaya 48 oo laga jaray eber yani wax isku dhuftay 8 ilaa inta xiriir ahaan column ahaan iyo row ahaan inta ayay leedahay soo ma 8 waa ku dhuftay 6 48 eber saa ku dhufo marka waxaan oranayaa tuudan maxay kooban tahay minorkii marka halkan waxa jaan goynayay cofactorka ayaa jaan goynayay cofactorka muxuu ahaa -1 row plus column hadduu halkan odd noqdo muxuu noqonayaa isla minuska ay soo baxay times minus soo ma marka waxaan oranayaa tuudan ila secondka tuuda way soo ma marka waxaan oranayaa tuudan maxay leedahay row ahaan waxay leedahay row 1
iyo column 2 markii labadan isku daro ka war cofactorka muxuu ahaa minus 1 soo ah 1 plus 2 maxay noqonaysaa times minus so marka wuxuu noqonaysaa minus 1 oo lagu dhuftay minorka ayaa soo baxay sax minor ayaa soo baxaysa minus 1 ka oo minor ayaa soo baxaysa minus 1 ka oo minor ayaa soo baxaysa marka 2 daan soo qaadanaya maxaan raacinayaa minus ayaa raacinayaa sababta minorka ayaa ku dhacayay minorkana maxaa ii soo baxayay bracket haddaan furto minorka maxaa ii soo baxayay minorka waxay soo baxayay relation ahaan muxuu lahaa column ahaan kan ayuu leeyahay row ahaan intaan marka maxaa soo baxaya 4 sagaal lagu dhuftay 36 iyo 7 oo lagu dhuftay 6 42 sax marka saas ayaa u kala hormarinayaa marka maxaan horeysiinayaa waxaan horeysiinayaa 42 oo labadan ka yimid 7 6 lagu dhuftay ilaa waxaan ka leexanayaa wuxuu column ahaan iyo row ahaan relation leeyahay waxaan dhahayaa 42 oo laga jaray 36 bracket oo lagu daray waa oranayaa ku dartaan maxay ku timid waxay ku timid ku dartaan halka muxuu noqonayaa column 3 marka row iyo column hadda isku daro muxuu qaadanayaa positive ay noqonayaa minus 1 haddaan fiiriyo hadda 1 plus 3 times minor maxaa soo baxaya positive 1 times minor ayaa soo baxaya marka minorka ayaa ku dhacsanaya 3 ayaa ku dhacaysa 3 ayaa ku dhacaysa sida formula ay naqaanay 3 ay ku dhacaysa numberka halkan yaala ayaa ku dhacay markasta marka maxaan sameynayaa oo soo koobiya ma ogtahay si yar fudud plus maxaa oranayaa 3 times minor column ahaan iyo relation ahaan iyo leedahay column ahaan kan ay relation leedahay row ahaan kaas maxaa oranayaa 7 eber lagu dhuftay 8 4 lagu dhuftay marka waxaan sameynayaa bracketka ayaan furanayaa waxaan oranayaa 7 eber ku dhufo sax waa isla eber soo ahan minus 8 4 ku dhufo 32 bracket ayaan ku xiriyaa intaan marka algebra ahaan raadis maxaa ku soo baxaya minus result ee wax soo baxaya haddaan si qoro intaas ku dhufo 48deedii oo laga jaray inta daas ku soo kala jibay halka waa 6 minus 2 alif maxaa soo baxaya plus minus way sorry minus waa soo baxaya minus intaas ku dhufo 96 marka maxay la noqonaysaa 60 oo minus ay la noqonaysaa marka dat maxay soo baxay dat 1 maxay soo baxay minus 60 ay soo baxay dat 1 maxay soo baxay minus 60 dat aadii horaan maxay soo baxay 60 ayaa soo baxay marka maxaa sameeyay hadaa labada row kala bedelay labada row marka kala bedelay maxaa isbedel ku dhacay determinantiga isbedel ku dhacay isbedelka determinantiga ku dhacay wuxuu noqday minus ayuu noqday marka waanu proof garanay waanu ka shaqeynay waa ka wadaa si fiican ayaan shaqeynay example ahaan ayaan ku cadeynay runtii waa soo koobay hadii aad faham weydin ku celceli tricks badan ayaa ku jira si kooban ayaa soo qoray ana waqti ilaalina aad baan mahadsantihiin